degmada dhuxun aad uga soo kacdo waxaad u imanaysaa deegaan aad iyo aad caan uga ah gobolkan iyo guud ahaanba deegaanka Soomaalida waxa weeye deegaan dhismayaal burburay oo dhowr boqol oo sanadood ay jireen lagu qiyaasayo dadka deegaankani waxay rumaysan yihiin inay ka hadheen ilbaxnimadii Cismaaniyiinta ninkan odayga abaa ka mid ah ragga deegaanka halkan aad u yaqaan halkan kadaata waxa weeye waa goob taariikhi ah oo hadda taariikhda aanu ka haynaay markii la yiraahdo waa waxaan anagu ka soo gaarnay lacag laga helay oo kala jira meeshan taata waatay lacagta laga helay waxa ku qornaa Sayd Barqash yaa ku qornaa waatay marka taariikhda aan ka haynay in dadkii ka soo gaarnay odayaasha magaalo Sanqaafkii koruun ay ka maqan tahay sida kale u dhisan odayaashii way soo gaareen way burburtay hadda inta ka dambeysay halkan wuxuu ahaa dhismihii masaajidka halkani masaajidkii baa hadmiya halkani masaajidkii bay ahayd taariikhda hadda Sayd Barqash oo kale waxaan ka warqabnaa qoladii Cismaaniyiinta la yiraahdo halkii ay ku burburtay dawlad islaam oo jirta oo caalamul islaam oo dhan xukuntay ya Cismaaniyiinta loo oran jiray marka Sayd Barqash qoladaas ka mid ah shilinkii laga helayna Sayd Barqash baa ku qornaa marka dawladdaas magaalo weyn oo saldhigo ah oo ilaa 20 kiiloomitir meel hadda la yiraahdo matarmi guri kan oo kale oo masaajida ka dhisan ilaa halka marka waxaad leedahay masaafad ilaa 20 kiiloomitir bay ku fadhiday 20 kiiloomitir oo isku wareega ayay magaaladan taasi ku fadhiday ugu yaraan ama waxay ahayd magaalo caasimad dawladeed ayay ahayd ama tug gobol bay ahayd marka taariikhda aan ka hayno waa sida magacani marka loo yaqaan balambal ma magac dhawaan baxay baa mise waa magac soo jireen isaguna marka saan u malaynayno derbiga waa magac horta soo magaceedii magaaladan taata ma hayno laakiin magacan dadka marka ay dadkani soo degeen Soomaalida ee saan u malaynayno meejiyo gidaaro iyo aqal ka dhisan iyo waxay isku beegeen meeja magaceedii marka geedkan balambal la yiraahdo geedahan kaata meesha aad ugu yaala kulli saan qiyaasayno darbigi balambal kala ha meeji gidaaradii balambal kala hayd sida u malaynaa laakiin magacan waa Soomaali dadka halkan deganaa laakiin waa dad ka horeeyay Soomaaliyeed taata bal hadda aan soo eegnay imkana dhismayaal kale oo la ii sheegay in masaajidkan ay ka wanaagsan yihiin oo wali si wanaagsan u dhisan waxaanu imka dhex joognaa mid ka mid ah guryaha deegaanka ku yaala derbi balambal markaad soo gasho waxaad arkaysaa xadaaradda faraha badan leh ee ay lahaayeen dadkii guryahan dhisay halkaa markaad eegto waxaad arkaysaa in khaanado wax la dhigan jiray sida la ii sheegay ay ahaayeen dhismayaashan inkasta oo aan baaritaan rasmi weli lagu samayn sida la ii sheegay haddana taariikh fara badan baa halkan ku duugan iyo raad fara badan oo taariikheed inkastoo waqtiga dhisnaayeen aan si rasmi loo sheegi kareynin haddana ilaa dhowr boqol oo sanadood waqti lagu qiyaasayo ayay dhismayaashani jireen haddana waa arkaysaa siday weli usii taagan yihiin waxa la ii sheegay qaar kaloo ka wanaagsani inay weli jiraan suldaan saxane adeer intaad ogtay wax baaritaan oo halkan lagu sameeyay horta ma jirtaa wax baaritaan oo lagu sameeyay ma jiro way wax intuu u yimid baaritaan ku sameeyo ma uu jiro eego buu hor leeyahay marka intii hore ma dagaaladii kala dambeeyay iyo colaadihii iyaba iska hor taageen baaritaan lagu sameeyo maxay kula tahay waqtiyo badan oo dagaal jirin baa jiray laakiin lama danaynin in dhulkan kala taariikhdiisa la baaro oo derbiga balbalo magaalo weyn inay to asaarteeda ay muuqato ma ayna jirin hadda ka hortow hadda unbay hor leedahay waxaan rajaynaynaa hadda kadib in baaritaan rasmi ah in lagu sameeyo yaan rajaynaynaa adigu maxaad ka soo gaadhay intaad garanayso dadkii hore shan jirkaygii baan horta annagu meesha yaabanile gudaheedaaba niilay way dhisnayd magaaladu weysaysa masaajidku laba ceel buu lahaa labadii ceelba way muuqdeen dhammaan guryaha gurigii la lahaa waa bangi buu yahay
wuu qumaati buu maxaa loogu maleeyay inuu bangi ahaa waxaa dhagax weyn oo hor qotomay baa nalagu dhagaxaasaa lagu gari jaraa nalagu yiri waaye marka sidaas weeye waxaa inagu dhow guri weyn oon u malayna gurigii madaxtooyada inuu yahay oon goordhow tegi doono yaa inagu dhow oon hadda yaa kamida dhismayow yaa kamida bal hadda gurigaa kale madaxtooyada loo malaynayana aan soo eegno dhismihii markaanu ka soo baxnay markaad dhinaca kale uga wareegto waxaa idiin muuqata khaanadihii ay dadku isticmaali jireen sida la ii sheegay oo markan laba u kala qaybsan oo laba qaybooda haddii halka dhexda adeegtaan ee khaanadaha u dhaxaysa waxaad arki karaysaa naqshadii lagu qurxiyey guriga oo iyaduna dee berigaa mala ahayd ta ugu sarraysa ilaa iminkana naqshadeedii ay sii muuqato laakiin khaanadu waa 3 isxiga weeye oo mid laba qaybooda dhinaca kale markaad usoo yaro dhaqaaqdo waxaa si fiican idinku muuqanaysa sidii daaqadaha gurigani ay ahaayeen inkastoo la ii sheegay in xagga sare daaqado wanaagsan oo inta ka waaweyn ay ku yaaleen laakiin ta iminka sida wanaagsan u muuqataa waxa weeye ta halkaa ka soo muuqata oo daaqad markaa dee loogu talagalay iftiinka iyo laydhuba inay guriga uga soo gasho bal hadda iminkana dhismayaasha kale aan soo eegaynaa waxaan weli dhex joognaa deegaanka derbi balambaaw waxaa iminka ila jooga guddoomiye ku-xigeenka degmada dhuxun xalane weli kooreeye guddoomiye idinku maamul ahaan degmadan maxaad war ka haysaa bismillahi rahmaani rahiim kulli degmadan horta saan ka war hayno waa magaalada weyn ee qadiimiga waa magaalo weyn oo burburtay dee dadku taariikh ahaan iyo ka awow unbaa la soo gaadhay in iyadoo sidana loo yimid haya sida hadda odayaasha iyo dhaqanku noo sheegayaana magaalo hore oo qadiimi ah oo maxaan ku dhahay waa caasimad weyn hadda jigjiga iyo way ka weyn tahay kiiloomitir ahaan markii la yidhaaho meel dhismaheed wuxuu joogaa meel shishe oo la yidhaaho maxaan ku dhahay derbi matarme xaggana koojaar buu joogaa intaa weysaysaa dhulkan aad aragtay eega buuraleyda u dhaxaysa waa dhulka beeraha ay ka qodan jireen iyo kaliyadoodii laagihii dee laaga waaweyn ba hadda noqdeen dadku way ugu yimaadeen على مركز ماشين ومجال قديمة أو وين هذا مرة حاجات سيرفيس بنكو سمينا أو حفيز كده كان يدلحيز كهير ديجاني هير فترة بحكي يميت وبعدين وحيار ما كقعدنا ولي بعدين وحيابها كقعدنا حكم مدها حيابها كمدها أنا كقعدنا وحكم مدها وحيابها يدك استعمال جريان وصيدا عليل يكول يوم حنكو راي وحيابها استعمال جريان وماشي جديه أنا كقعدنا علامة يرد دميلها كل حركنا لجحيان عيد أو وحلاقة قاضي أنت هذا السيرفيس أجاب النوع على قاضي. مركان نتيجة دي سان كور هيو ولي ما يصير نقصوما. نتيجة ولي ما يصير نقدنا ولا بنت هاي ونسوينا. لكن أنت أيدي لك شوجين قليها هير ديجانة دلحيسكا يهير فدرال محيدين شاجة. وحنا شاجين ده ماشى إنه تهي ماشى إن كوباد دقن كي دلحيسكا لو سمين دونا مركا إني أنا خلطنا وحنا قصرنا إني ماشى تعطى لا إلى ضيعت له وصي حاجة إنك الدولية. marka waxay noo sheegeen dayactir fududina sanadkan loo qaban doono dhirta laga guri doono say u soo baxda meeshu isla marka haddana in dib loo dayactir ayadoo dhisayinkeedii la raacayo ila wax haday maxaan ku dhahay meel qadiimi ah dhisayinkeedii lagama bedeli karo ayadoo marka dhisayinkeedii la raacayo in dayactir lagu sameeyo oo meeshan maxaan ku dhahay deer lagu xidho meel dhaqankeeda dalxiiska ah oo maxaan ku dhahay si fiican loo soo koriyay inay noqoto ayaan gudoomiye waxaad goor dhaweydii sheegaysay in dadka qaarkood ay halkan bililaqow soo doontaan ama ay ka baadhaan waxyaabo qiimo leh halkan maxaa ka dhacay markaanu taaganay halkan horta saad aragtaanba meeshan waxay leedahay calaamado gaar ah dhagaxaan iska soo horjeedo oo meelo cid la qabsan dhagaxaantan intan la eg oo mid baa imika dinsan xagaas asna ka soo horjeeday oo maxaan ku dhahay waysaas ay soo horjeedeen waa marka asagoo halkan ka daata maxaan ku dhahay dad
dahab iyo wax ka baaranaya macdan oo socdaa halkan yimid waa la noo sheegay halkan buu aad calaamadii saareen ayagoo qodanayaan marka anaku maxaan ku dhahay aan ka maamulahaan aragnay waan xidhnaa waan kaxaynay nimankii kadib maxaan ku dhahay waan gudbinay oo xagaas kor baan u celinay marka anagu ka deegaan ahaan intaan hadda maamulka anagan cusub hadda intuu dhisan yahay iyo maamul sanadadan dambaba bulshadu way ilaashataa oo way jeclaysanaysaa meesha taata inay tahay meel qadiimi ah hadda ka hor laakiin meel la daryeelka dadku derbi balanbalkan lagu sheegaya derbigii iska taagnaa ee ugu nimid balanbalkii ka baxayay yay magaca ugu bixiyeen ee magaalada laakiin magaceedii hadda ka hor wixii loo oran jiray lama garanayo hadda ka awow un baa loo bixiyay derbi balanbalkan oo ka baxaa derbi de iska taagan oo weynna meesha way leedahay haddaad dhinacan uga yara dhaqaaqdo guddoomiye waa arki karaysaan baan u malaynaya dhagaxaasi intuu dhulka ku aasnaa inta soo jeeday intan madowgaa bay ahayd intan kale waa intii u aasnayd weeye markaa dadka deegaankan dhisay wakhtigaas oo laga yaabo inaanay qalab waaweyn oo mashiinaa iyo waxaa haysan ayaa haddana qaadayey oo dhulka ku taagayey dhagaxyada intaa laaleeg daaraha arkaysaan iyo kuwa kale aynu arki doonana dhisay runtii meeshana waxay u baahan tahay in fiiro degdega loo yeesho sida muuqata dhismayaasha deegaankan ku yaala derbi balanbal way ka sii darayaan mucjisaana halkan ku jirta iminka dhagaxii aan idiin sheegayey waad iska iloobaysaa markaad kan aragtid bal intuu leegaya dhagaxaasoo keliya ay daarta ku dhiseen ee seeska ay uga dhigeen dadka markaa qaadaya dhagaxa intaa laaleeg ee qalabna aan haysan waxaa su-aasha iman karaysa ay tahay iyaga qudhoodu intay laaleekaayeen suldaanka iyo ragga odayaasha kale ila socda iyo guddoomiye ku-xigeenka degmadu waxay noo sheegeen in halkan iminkaanu taaganay ay u malaynayaan inay tahay meeshii madaxtooyada ahayd ee wakhtigaa halkani ay magaalada ahayd looga talinayey suldaan saxane maxaa ugu malayseen inay madaxtooyadii ahayd waxaan ugu malaynaa dhismaha yaa ka bedelan dhismayaga kale ka bedelan waay wuxuu leeyahay wareegyo dhowr oo isdaba yaal u leeyahay adayg badan baa lagu sameeyey dhagaxyo waaweyn oo dhulka kale uusan kusii dhisnayn oo gaar ayay sii leeyihiin waxa taasaan ugu malaynay dhagaxyadaad ka hadlaysay sida deyrka oo kale loo dhigay sida loo dhigay waa kuwan waaweyn ee inaga dambeeya miya kuwaasaan ugu malaynay inay tahay meeshii madaxtooyadiina hadda calaamad gaar ay leedahay sideeda bannaanba taasaan ugu malaynay ma ugu malayseen oo kale taaggan ay saaran tahay taaggana waxaan ugu malaynaa waa de meel madaxtooye iyadu waa inay ka sarrayso waa meesha u sarrayso taasaan ugu malaynay waaye iminka waxaynu soo eegaynaa meel kaloo la ii sheegay inay ka mid tahay meelaha lagu sababaynayo inay halkani ahayd madaxtooyadii halka aynu iminka tegayno maxaa ku yaalla suldaan waxaa ku yaalla dhagax sida libaaxoo kale loo sawiray baa ku yaalla sida libaaxoo kale loo sawiray mise loo qoray loo qoray weeye loo sawiray mehe loo qoray oo qoraalkii baa ku yaalla oon hadda arkayna haddii ilaha yidhahdo bal qoraalkaada aan soo eegno intii uu ku yaallay astaanta libaaxo ayaynu iminka soo eegayna waxaanu iminka soo gaadhnay goob ka mida goobaha odayaasha iyo dadkii kale soo booqdayba ay ugu maleeyeen in halkan ay ahayd goobtii madaxtooyada ee deegaanka looga talinayey dhagaxa sida loo qoray markaad eegto wuxuu aad iyo aad ugu egyahay libaax fadhiya libaaxii markaa astaan kale halkanna waxaad moodaa in qoraal lagu sameeyey soo maaha kolley halkan kaata waxaa yimid dhowr jeer bay yaa lasoo booqday oo booqasho dawladda federaalka iyo ta deegaankuba ay yimideen inay tahay meeshani
meejii madaxtooyada waxlaayaha loogu maleeyey kow waxaa ka dhagaxan kadata qaabkii libaaxa u qoran yaa ka mid a etoobiya inteeda badan waxay taqaanaa meelaha xeryaha ciidamada iyo xeryaha gaar ay dawladdu u leedahay madaxtooyada iyo libaax baa lagu hor sawiraa haya marka tii iyagoo ka qaadanaya waana kolley haddii quruun iyada qudheedu in badan soo jirtay bay ahayd oo dawladdan cusmaaniyiinta laleeyahay kolkay jirtay tanna way jirtay uun etoobiyana marka waxlaayaha loogu maleeyey waxaa ka mid a libaaxan kadata dhagaxa la qoray ah ee shashangallaha ku fadhiya kaasaa ka mid a astaanta libaaxu sidaa odaygu sheegay muddo aada u dheer bay ahayd adduunyadoo dhan mid loo adeegsado awoodda ama powerka tanina kama duwana sida idin muuqata dhagaxan weyn iminka iga dambeeya waxa uu ka mid yahay dhagaxaanta ugu waaweyn intan odayaashu ay u malaynayaan madaxtooyada ku yaala laakiin isaga qudhiisana waxa ku wareegsan dhagaxaan kale ilaa inta guriga laga gaarayo marka ilaa inta baaritaan rasmi ah lagu samaynayo deegaankan runtii lama garan karo waxyaabaha loo isticmaali jiray laakiin sidii gudoomiye ku-xigeenku inoo sheegay waxa maqan baaritaankii ay hore u sameeyeen waaxda dalxiiska ee heer deegaan iyo heer federaal natiijada kaa waa la sugayaa laakiin waxaan filayaa halkan oo kale inaanay ka maarmaynin in baaritaan caalami ah lagu sameeyo si loo ogaado degmadan iyo waxay ahayd iyo qalabkay isticmaali jireen iyo waxyaabaha kale ee ka turjumaya raadka taariikhda ee deegaankan